munaasabadan lagu daahfurayay adeega Mastercard-ka ee uu soo kordhiyay IBS Bank ayaa maanta waxaa ka soo qayb galeen wasiirka ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda Soomaaliya, wasiirka maaliyadda, xildhibaano ka tirsan labada aqal, midowga bangiyada, gudoomiyaha rugta ganacsiga, qaar ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed iyo marti sharaf kala duwan oo lagu casuumay munaasabadii lagu daahfurayay adeega Mastercard-ka ee soo kordhiyeen IBS Bank. ugu horeyn waxaa madashaasi lagu daafuray adeega Mastercard-ka ee IBS waxaana ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee IBS Bank Cabdirasaaq Cali Warsame wuxuu ka warbixiyay adeegyada IBS Bank si gaar ah adeega ay maanta xariga ka jareen ee Mastercard-ka. Dalma waa one of the best cards ee Mastercard bixiyaan wadankii bartamaha iyo bariga Afrika ugu horeeyay ee sharaf u yeesho Mastercard member kan oo kaarkaas Soomaaliya noqday ummad badan oo deegaanka intaan anagu waalnayn runtii oo intaas oo bangiyo caalamiga ay ka jiraan inaan uga soo hormarno waxay ku tusaysaa taasi in teknolojiyada wax la yiraahdo iyo adeegyada nin marti uga hadunta u san jirin run ahaantii IBS adeegyo fara badan oo kala u haya oo idin keenay dhammaan sector walba haday noqon lahayd real estate, financial adduunka wadana kama kaco meesha u yaalo haddii dadkiisu access u lahayn ama aysan u lahayn connection ku haysan finance no one cannot develop ama cidina develop gareyn ka wadan so marka waxaan ka rabnaa lacagaha laga geeyay banaanka guryaha nooga haynina soo dhigta bangiyada la macaamila bangiyada bankiga lacagta waxay ka dhigan tahay saacadii aad shirkaaga u baahatid waa helaysaa saacadda aad u baahnayna systemka dhaqaalaha waddanka qayb ka tahay lacagtaadii adiga laftakaaga aad lahayd oo qof kale oo walaalkaaga shaqo u abuuraysa qof kale maxaa la yiraahdaa kaabo u tahay at the same time adigu u baahantahay shirkaaga waa helaysaa nin meeshaan gadaal iga taagan iyo war badan baan ku guuri lahaa maanta adeegyo wasiirka ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Cali Xasan ayaa maamulka IBS uga hambalyeeyay adeegan ay soo kordhiyeen wuxuuna sheegay in waqtiga loo baahnaa ay keeneen adeegan wuxuu ku baaqay in la dhiirigeliyo ganacsatada Soomaaliyeed. farxad weyn iyo sharaf iyo rayn ay noo tahay inaan ka soo qayb galo xafladan lagu daafurayo وبنجي IBM وكسر داخله برنامج عصب وكسر بأدريسة رتي وحنا له البرنامج كنوعان وبرنامج كترجمة باهية شعب الصومالية الأقران الغير كالدول بغير الإحيان رتي وبرنامج Soomaaliya ku xiraaya ama dadka Soomaaliyeed ku xiraaya caalamka intiisa kale waa barnaamijkan isleeyahay wuxuu yimid waqtigii loogu talagalay iyo waqtigii loo baahnaa runtii Mastercard-ku hore waa u jiray dalka laakiin IBM waxay ku soo kordhiyeen inay Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beele wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya ayaa madaxda IBS dhankiisa uga hambalyeeyay hirgelinta adeega Mastercard wuxuuna sheegay in doorka ganacsatada Soomaaliyeed uu muuqdo wasiirka ayaana aad ugu amaanay madaxda IBS adeega ay u soo kordhiyeen shacabka Soomaaliyeed. waxaan aad ugu mahadcelinayaa kuna bogaadinayaa bankan IBS inay maanta keenaan elite Mastercard inay keenaan aanay noqdaan institutionkii ugu horreeyay Central and East Africa la yidhaahdeen halka Soomaaliya keena yani waa wax aad iyo aad sharaf inoogu aweeyaan inay taasi dhacdo. Maryam Xuseen Jibriil, Dalsan TV, Muqdisho.